cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dawladda Puntland oo gaaray degmada Dhahar ayaa mashaariic horumarineed oo isugu jira wada Laami taas oo isku xiri doonta degmada Dhahar ee caasimadda Highland iyo deegaanada Sherbi iyo Xingolool ka dhagax dhigay sidoo kale madaxweynaha ayaa mashruuca dhismo guriyo oo wajigiisa hore dadka danyarta loogu hirgelin doono 100 guri ka dhagax dhigay degmadaasi munaasabada dhagax dhigga madaxweynaha waxa kala qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Abdullaahi Xirsi Cali Timacade iyo Suldaan Maxamed Suldaan Abdullaahi waxgarad nabadoono qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland ayaa ku sugnaa goobta mashaariicdan horumarineed uu madaxweynaha ka dhagax dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Abdullaahi Xirsi Cali Timacade ayaa ugu horeyntii ka hadlay goobta dhagax dhigga munaasabadii labaad aan dhexdheerno wadada Dhahar ila Sherbi isku xidha wasada Sherbi ila Xingolool Sherbi ila Dhahar ana qarashka inta noo hayna waa intaas noqonsa diilaayro inta kale madaxweynaha ku dhaqdari doona wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyana mashruucan sheegay qaybta ku darsan doonta qayb fiican ka bixin doonta waa Sherbi ila Dhahar insha Allah hadii la ilaaho mashruucan saxana bay kamid ahayd marka Dhahar saaka waxay nasiib u yeelatay madaxweynihii inuu dhagax dhigo 100 guri oo loogu talagalay dadka xoolaha ka dhamaadeen iyo wadada Sherbi ila Xingolool oo Dhahar ila Sherbi wasaaradda arrimaha gudaha ay mashruucaas qarashka bixin doonto inta kalena isku tashi ama ku bixino ama madaxweynuhu meelun ha saar hadii la ilaahay weeye marka nasiib u yeelatay in labada mashruuc ugu horeeyay wasaaradda arrimaha gudaha fulinayso Suldaan Maxamed Suldaan Abdullaahi ayaa si weyn u soo dhaweeyay mashaariicdan madaxweynaha uu ka dhagax dhigay degmada Dhahar sidoo kalena waxa uu bogaadiyay booqashada uu ku yimid gobolka Highland aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa booqashada ugu yimaadeen iyo inta ay nala joogeen iyo inta ay joogeen shaqada madaxweynaha iyo wafdigiisa ay qabteen mashaariicda runtii gobolka ay soo gaarsiiyeen oo balaaran intaba waa uga mahad celinaynaa mahad celin ka bacdi run ahaantii waxa xusuus mudan goboladan Highland iyo Sanaag madaxweynuhu mashaariicda uu qaarna fuliyay oo hadda gabagabo ku dhow qaarna uu maanta dhagax dhigay oo ah infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaalaha dariiqyada wadooyinka laamiyada goboladan tan iyo xorriyadii 1960gii ma soo gaarin maanta ka hor xagada wanaagsan aad baan madaxweynaha iyo dawladdiisa uga mahad celinaynaa annaguna insha Allah wixii dhinacayaga iyo karaamkayaga ah waxaanu ku dadaalaynaa hadii Allah idmo inaanu dadaali doono oo aanu arrimaha qaybta aan ku leenahay aanu ka qaadan doono hadii Allah madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayaa gabagabadii ka hadlay goobta markale waa bogaadinaya dhagax dhigga wasaaradda arrimaha gudaha maanta bilad baan siinayna insha Allah sababta waxa weeye boqolkii guri iyo qaybtii feeskii koowaad ee wadada oo ah Sherbi ilaa Dhahar ayagu ay $3 milyan oo كانت هذا رئيسه طبعا انت كان ودنا ما يصيرنا doona ilaa Xingolool hadii ilaahay yiraahdo marka mashruuca isku dhaqaalay waana bilowday intii dariye u maleynaysan waxa weeye waa dab weeye wax sheeka ma Yahya Nuur Muumin warbaahinta dawladda Puntland magaalada Qardho